صوما بشهر رمضان صوما نمع عبد الله محمد waa gabar yar oo nolol xanuunka dhimarka mana haysatay wax hooya sidoo kalena ma laha wax aaba iyo hooyo ay toona oo wax u qabtaa waxay ku nooshahay ama ay joogtaa meel cidla oo aanay lahayn wax hooya oo ay dhaxanta iyo dabaylaha dhacaya ka gasho sidoo kale ma haysato cid daryeesha mana laha wax hantiya oo lagu daryeelo waxa uu telefishinka Badacas u kurgalay xaaladeeda nololeed waxaana nooga warbixiyay Hodan Maxamed iyo sidoo kale Faadimo oo kamid ah dadka ka agdhow macayar sidoo kale dadka muslimiinta ka codsaday inay soo caawiyaan maadaama lagu guda jiro bishii Ramadaan sida lagu sii guda jiro 10kii dambe ee Ramadaan macayar aabaheed ayaa waxa qaaday daad sidoo kalena hooyadeed ayaa u dhimatay xanuun soo wajahay bismillaahir rahmaanir rahiim inta waxa la yiraahdaa Nimca Abdullaahi محمد واغون وانا رجو ابيه داد با قاداي 8 sano ka hor hooyadeed waxa dilay xanuunka xun ee kansalka la yiraahdo ehel baan waayaan weedadeed baan way dayacantay halkaas baan ku haynaa oodaha iyo waabta yar hoosteed waxaan joognaa magaalada Cali Xuseen wax ku soo taray wax caawiya islaamka wixii Ilaahay ka siiyo ayaanu ka codsanaynaa dadka muslimiinta ayaanu ka codsanaynaa inay noo caawiyaan oo caawiyaan insha Allah bismillaahir kariim wixii islaam ah Ilaahay wuxuu ka qoray ayaanu la rajaynaynaa iyo Ilaahay weyn waaxidka halkaas aanu ku haynaa boorka oo daayar dhexdeeda waabta hoosteeda xaaladeedu waa caynka meel ay roobka ka gasho male waad aragtaan inaan taayar xus aan lahayn aabaheed daad la tagay hooyadeed xanuunkii xumaan ku dhacay dhakhaatiirtii wadanka waxba laga qaban waayay marka Ilaahay dartiis ayaan ugu soo gurmanay marka Ilaahay waxaan ka rajaynayaa idinkoo muslimiin ah inaad nala qaadataan sidaan naba ugu soo gurmanay waxa tihiin inagu balinagu eegaya insha Allah waxa way Ilaahay uma waayin xus Ilaahay caga uma waayin Ilaahay hooyo aaba uma waayin laakiin inagu inagu eegaya insha Allah bismillaahir kariim waxaan ka codsanaynaa hadii Ilaahay iraado waa bir Ramadaan waa 10kii ugu dambeeyay waxaan ka codsanaynaa inaan taayaro miskiinada oo aan hooy lahayn aad aragtaan meeshaan hoos fadhino roobab baa socda maxay haytay qorax baa jirta Ilaahay baa dadka wax tara laakiin insha Allah bismillaahir kariim waxaan idinka codsanaynaa muslimiinta inaad soo gargaartaan insha Allah waa bil Ramadaan waa xilligii maxay haytay dadka muslimiinta ay soo naxariisan jireen marka insha Allah waxaan Ilaahay idinka rajaynayaa idinkana inaad inantaas aad aragtaan inaad dadaal badan nala muujisaan bacadka ay fadhido insha Allah inaynu soo asturo Ilaahay baa wax astura Ilaahay baa dadka wax tara laakiin Ilaahay soo naxariistay wiiri Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa bismillaahir kariim muslimiintaas inaynan taayar aad aragtaan horana wadu aragteen insha Allah iminkana Ilaahay waxaan idinka rajaynayaa inaad soo naxariisataan haddaba bulshada muslimiinta ay ku kala nool daafaha dunida waxa laga codsanayaa inay soo caawiyaan nimcayar wixii ay awoodaan ugu soo hagaajiyaan lambarada shaashada ay ka muuqda Nuux Maxamed Cabdi Badacas24tv magaalada Barta